isniinta maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa ka fadhiisan doona aqoonsiga rasmiga ah ee ay dowladda sharciyada haysan ee Yuhuudda Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland. Dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyadoo ka faa'iideysanaysa kursiga ay xilligan ku fadhido ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay gudbisay cabasho ka dhanaa aqoonsiga rasmiga ah ee Israa'iil siisay Somaliland. Talabadan oo ay Muqdisho u aragtay inay tahay difaaca madaxbannaanideeda ayaa dhanka kale khubarada diblomaasiyaddu u arkaan inay tahay seef laba af leh oo khatar ku ah qadiyadda Soomaaliyeed midowday 60 lafteeda. muuqaalkan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa falqayn qoto dheer oo ay qabaan khubarada diblomaasiyadda laftoodu jidho horeba marka arrin maxalli ah la geeyo miiska ugu sarreeya adduunka waxay si dadban u siinaysaa Somaliland maqaan dowladnimo maadaama golaha ammaanku uu caadiyan ka doodo khilaafaadka u dhaxeeya dowladaha waxa loogu yeero state to state conflict. Waxaynu faahfaahin natiijada suurtagalka ee maanta waa inaan marka hore kala dhigdhignaa 15 dal ee hadda 2025 ka taliya golaha ammaanka. xubnahan waxay u kala baxaan shanta joogtada ah ee leh awoodda fiitooga iyo 10 aan joogtada ahayn. shanta xubnood ee joogtada ah waa Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha. 10 xubnood ee aan joogtada ahayn ee sanadkan kuraasta ku fadhiya waa Algeria, Guyana, Jamhuuriyadda Korea ama South Korea, Sierra Leone, Slovenia, Denmark, Greek, Pakistan, Panama iyo dalkeena Soomaaliya laftiisa. Marka la eego danaha isdiidan ee dalalkan codbixintu ma noqon doonto mid ku saleysan sharci balse waxay ku saleysnaan doontaa dana siyaasadeed ama waxa loo yaqaan geopolitics. Isbahaysiga ay u badan tahay inay Soomaaliya taageeraan waxa hogaaminaya Shiinaha iyo Ruushka, Pakistan, Algeria iyo Sierra Leone oo inta badan raacay iyagu mowqifka midowga Afrika. dhanka kale isbahaysiga la filayay in Israa'iil iyo Somaliland difaacaan ama ugu yaraan diidaan in Israa'iil la cambareeyo waxa ugu weyn quwadda haysta awoodda fiitooga ee Mareykanka. waxa ku soo xiga Ingiriiska oo ah dalka gacanta ku haya faylka Soomaaliya waxa isaguna xiisa gaar ah leh doolka Greegu wuxuu xilligan dareenayaa inuu xakameeyo Turkiga maadaama Turkigu yahay taageerada koowaad ee Soomaaliya. bilowgaba dalalka taageerada u muujin doona dooda Israa'iil waxa ugu tuweyn Mareykanka, UK, Faransiiska, Greega, Denmark, Slovenia, Panama iyo South Korea. natiijadu waa Israa'iil oo haysta 8 cod iyo Soomaaliya oo haysta 6 cod. waxaana Israa'iil u dheer codka diidmada qayaxan ee Mareykanka taasoo dhinaca ama dalkeena Soomaaliya bilowgaba dhaxalsi doonta fashilka diblomaasiyadeed ee ugu weynaa. maxaa dhacaya haddii goluhu cambaarayo Israa'iil? haddii ay dhacdo mucjiso oo 14 dal ee kale ay isku raacaan cambaaraynta Israa'iil natiijadu waxa ay ku dambeyn doontaa uun fashil sababtoo ah Mareykanka ayaa isticmaali doona awoodda fiitooga. taariikhda golaha ammaanku intii uu jirayna Mareykanku wuxuu 100 jeer fiitooga ku difaacay Israa'iil. maxaa dhacaya haddii Soomaaliya laga codbato? haddii Soomaaliya ay ku dareysato in ay hesho codad ku filan oo 9 cod ama uu Mareykanku fiitoo isticmaalo tani waxay noqon doontaa guul taariikhi ah oo soo hoytay dhinaca Hargeysa iyo Somaliland. waxay ka dhigan tahay in qadiyadda midnimada Soomaaliya aanay haysan taageero caalami ah oo midaysan. waxay abuuri doontaa kala qaybsanaan caalami ah oo sharciyeynaysa in Somaliland xaqiiqo jirto oo aan la iska indhatiri karin ay tahay. faa'iidada daasun ee Somaliland ugu jirta shirkan dhaqdhaqaaqa Soomaaliya ee golaha ammaanka wuxuu Somaliland u leeyahay faa'iidooyin istiraatijiyadeed oo aan la qiyaasi karin kuwaas oo laga yaabo in Muqdisho aanay ku xisaabtamin markii hore. marka koobaad caalamiyiinta qadiyadda Somaliland waxay muddo dheer raadinaysay in qadiyadeeda laga saaro gacanta midowga Afrika iyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo la geeyo masraxa caalamka. Soomaaliya ayaa hadda fulisay riyadaas iyada oo aan Somaliland wax qarash ah ku bixin in golaha ammaanku ka doodo Somaliland. tani waxay siinaysaa miisaan la mid ah kan Kosovo, Taiwan ama Palestine. waa aqoonsi dadban oo muujinaya inay tahay entity ka madax bannaan maamulka Muqdisho. wanaadkii muuqaalkan iyo falanqayntan yar ee koobanna talaabada Muqdisho waa mid ku dhisan qiiro balse ka maran xisaabtan dhab ah oo siyaasadeed diblomaasiyadduna aysan faraha kula jirin. geynta galka Somaliland ee golaha ammaanku maaha maxkamadaynta Israa'iil ee xafladda daafurka ee Somaliland loo soo bandhigayo 5 quwadood haysta awoodda fiitooga ee adduunka ugu waaweyn inay tahay xaqiiqo jirta oo u baahan in lala macaamilo. haddana waxaynu eegi doonaa dagaalka diblomaasiyadeed oo dhex mari doona Somaliland iyo Soomaaliya marka la joogo miiska golaha ammaanka ee qaramada midoobay. natiijadana muuqaalada xiga ayaynu ku falanqeyn doonaa idamka Alle. waxaan idin rajaynayaa nabad barwaaqo iyo nabadgelyo.